maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay laba garoon oo cusub oo lagu ciyaari doono basketballka amaba kubadda gacanta. Garoomadan oo laga hirgeliyay dugsiyada Sheekh Bashiir iyo Sheekh Cismaan Nuur ayaa waxaa mashaariicdani horumarineed ka wada gobolka Togdheer maamulka dawladda hoose degmada Burco, waxaana mas'uuliyiintani markii ay dhagax dhigeen goobahani loogu talagalay sidii loogu horumarin lahaa korna loogu qaadi lahaa isboortiga gobolka Togdheer. ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Burco, waxaanay dhammaanba ku dheeraadeen ahmiyadda ay mashaariicdani u leedahay isboortiga gobolka Togdheer. iyagoo ka hadlaya arrintaasi ayaa waxay yidhaahdeen halkani waxa weeye Sheekh Bashiir hortiisa banaankii weynaa ahaa waxaan loo qoondeeyo dawladda hoose u qoondeysay oo aan la garan in laga dhigo wuxuu ahaa garoon kubadda kolayga ah si dhalinyarteen u hesho chance iyo meelaha ay ku ciyaaraan oo ay energy-gan ku jira iskaga saaraan iyada iyo koonfurta magaalada oo mid kala soo dhagax dhigi doona labadaas aan u sameeynaa mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada isku duuban garoon ciyaareed oo ah kubadda gacanta ina halkan ay noqoto centerkii Burco handball center ay noqoto oo dhalinyarada xiisaysa kubadda gaar ahaan kubadda gacanta ay halkan u noqdo center. waana taaladii Sheekh Bashiir waa meesha bariyaaba la leeyahay dawladda hoose cunaysa. waxaan u dhagax dhignay maanta inaanu ku soo wareejino goob aan ugu talagalnay kubadda gacanta in lagu ciyaaro. Sheekh Bashiirna waa ogeydin oo inagii soo dhagax dhignay si sportiga gobolka uu noqdo mid chance badan ama waqti badan loogu helo in goobaha loo badiyaa. sidaa ogeed halkan waa goobtii labaad ee aan ugu talagalnay sportiga degmada in runtii khaasatan kubadda gacanta. si kastaba ha ahaatee garoomadan kala gadisanay maanta dhagax dhigeen mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay eedeymo kulul loo soo jeedinayay mas'uuliyiinta degmada Burco, taasoo lagu eedeynayay inay iibsadeen dhulkii hantida guud taasoo ay ka iibiyeen shakhsiyaad gaar ah. Qaadan Maxamed, shabakada caalamiga Dad Madheer News, magaalada Burco.